بسم الله وحرجيني أن سفي على مقليو ريور برآت باندين سلامينا أنا جو كوكيلة جود هامبا dadka qorayaasha Soomaaliyeed meel ay joogaanba gaar ahaan intii aan wada soconay macallin Daahir macallin Cabdi Bashiir macallin Ali iyo macallin Cabdi Qani waxaan aad ugu faraxsanahay reer Urubaro ma doonayo taariikh hore inaan dib ugu laabto sida qiimaha badan leed noo soo dhaweyseen sida waqtigiina qaaliga noogu soo horteen inaad la kulantiin dadka walaalihiin ah ee idinka yimiday meel dheer oo Stockholm idinka yimiday aad baan idinkaga mahadnaqaynaa waxa kale oo mahadnaqaynaa macallimiinta dhalinyarada Somfalex maxaan ku idhaahdaa iyo jaaliyadaha oo ka socdo Mahdi aad baan idinku mahadnaqaynaa sida qiimaha badan ee isku abaabisheen iyo saad noo soo dhaweyseen inta waxaan ku darayaa كل أوروبا ومجالات ترسان أو ترسان أمة الصومالية ذي غير سويدن مركز لجأ يقدن كمعلمين تا يقدن كقرياشة ما لها واحد جرنا يصير واحد لينا هذا تري جهوزتي سماه فيو وحيد اللي جوا مجالات دي نكون القريال وين وأنا جبنا جوا وين أو مهد الدائرة كميديا هاي أو كميديا عبد الفتاح أو القوفة ديا وكميديا هاي ما شاء الله وإن وناكسن إيه إن كلو بدن بعد لذيهين تاني أو أمد الصومالية وجوه الرئيسنا تدك اختراع عباتهين أو رنتي إن لجرب جوك سدو دليل يرداس فكر كعصب كنتي أنا وحدان لنمد بوجين نولا اللي بنتها حدان لنمدني كو سدا ومحان كودا هذا وينو شيغا خريريوه كولا سودا او تليفونكاغا كوغو جيرا رغا inoo sameeyana waa in loo mahadnaqa inta hadaan halka dhigo malaha waxaan oran lahaa hal eray oo aan kaga dari lahaa war waxaan anagu aan nusidno ee aanu muddada dheer ka shaqeynaynay runtii anaga dadkan intooda badani ma yimanin daraartii aan maaragtay qoraal ka bilaabay walow la iiga horeeyo Mahdi iyo rag fara badan oo halka jooga iiga horeeyeen daraartii qoraalkan la bilaabay waxaynu aad u xadidnaa ummaduna waxa inagu canaanan jirtay oo gaar ahaan school verkad iyo wasaaradda waxbarashada ay oran jireen war Soomaaliyeed miyaad sida ummadda ahaatiin sida ummadaha Kurdishku qaran ma laha afkooda بيئدن أي جوجان عروض كسابسن يجا ديار صدا إريتريينتو يجا ديار صدا عربتو محايدين ديدي أنا وتاجنا محاضرة أي كجحد ليسو وزارة وحبرشة إلى الصومالي ما واحد ديار ستين وبتكين ما واحد ديار سين أنا وتاجنا وح إله اللوجو ما هدية ما أنتنا wax badan oo aan la qiyaasi karin oo lagu faani karo oo waliba iswinan ay koow ka tahay marka caalamka weyn ilaa xad Soomaaliya xataa marka lagu noqdo caalamka weyn marka dhan walba laga eego iswinan baa hooyo oo ah qoraalka Soomaaliyeed ama ila fahmi reer Urubaro ama ila fahmina waxana ina saaciday oo ina taageeray waa dhaqanka wax akhriska iyo buuga ee reer Sweden إلا سويدن دقن كبوجا إيه وحخرسكو وحول بوجا هرية وحول بوجا قالسن بوجا إيه وحخرسكا حداني دد كلهين محن كودا هذا نلول وحخرس وحنقونا يان دد حدلا وهذا الكودني هاي ترورق أوكي مهمة وأفكن يقرأ كني نولي هنا waxaan maanta anigu ka hadlayo iyo waxaan idin ka sheekeynaya midnaba ma nin waliba uu garanaya waa waxa inaga soocay Urubaro oo dhan oo ay maxaan ku raday Swedishki ku nool yihiin oo intaas oo ajnabi ku nool yahay waxa inteena isku keenay waxa weeyaan waa baadi soocda kaliya aan wada leenahay ee afkeena kaasina hadii la baylihiyo maanta waxa weeyaan sida inankii ugu horeeyay sheegay
bay mahdi sheegay bay ilmahan ilmihiisu halkan waa lagu noolaan doonaa muddo dheer bay Soomaalidu sii jiri doontaa laakiin waxa aynu raandhiis iyo raad ugu yeelan doonaa caruurteena sida aan waxeena u ilaashano afkeena sida aan u ilaashano ummadina ma baaba'do inta uu afkeedu jiro ummadina ma jirto afkoodii oo lumay waxa aad maqashiin cibraaniyiin ee aad maqashiin kancaaniyiin ee culumaha diintu ka wada hadlayo maanta dad kale un bay noqdeen marka haddii la rabo afkaa in la kaydiyo waxa weeyaan qoraalkeena iyo afkeena ha lagu adkaado inaan inamada dhibo ma rabo daqiiqad waxaan siinayaa buugaagta aan qoray xabad un baan soo qaaday buugaagta halkaa taala nooc kasta oo wax uga baahan tahay ama maskaxdaada ku jira ama aad ubadkaaga la rabto halkaasay maanta yaaleen sheeka caruureed hadday tahay way buuxaan rag baa si specific uga sheekayn doona macallin daahir iyo cilmi haddii loo baahdo buugaasoo kale geela keliyuu ka hadlayaa mahadsani jazaakumullah waa dugaaga oo keliya waxaa laga yaabaa inay dad badan iskaga qaldan yihiin ugaadha iyo dugaagu cajiib wixii aad ku kala sooci lahayd ama sidii aad mid walba ugu heli lahayd inaad ilmahaaga gooni ugala hadasho maanta way ku hor yaalin oo fursad baad u haysataa waa ugaadhii iyo dugaagii oo kala duwan suugaan hadday tahay dhadhankeedii iyo qiimaheedii iyo macaankeedii nooc walba way u yaaleen murti iyo maahmaaho iyo dhaqan Soomaaliyeed ninkii wax ka xiisaynaya way idin buuxaan buugaagtii waxbarashada ee iskuulada ee waxa weeyaan inaga Sweden waxaan ka baranay alxamdulillah wadan walba oo Soomaali maanta joogto meel walba waxbaa laga baranayaa Sweden waxaan ka baranay waxbarashadu inaanay iskuulka ahayn aad hoosta waxa reeqa waalidiin baa tihiin wada daayar waxbarashadu waa guriga waliba markay afkeena hooyo noqoto de macallin baan ahay waxa soo buugana waxbaan ka qoray waxbarashadu waa guriga iyo aqalka sida aad u qiimayso afkaaga hooyo iyo ilmahaaguna u qiimayni sida aad waqti u siiso ilmahaaga iyo wax u barani sida aad adigu ugu dadaasho iyo qeyrkii uga murayaa oo uga soo dhaxbaxaya ilmo marka buugaagtii waxbarashada laga bilaabo xanaano ilaa dugsi sare iyaguna way noo yaaleen nin walba wuxuu xiiseynayo weydiin doonaa taariikh hadday taariikhi qiimo leedahay oo ay ummadda Soomaaliyeed micno u leedahay Cabdalle Cumar Mansuur buug runtii cilmi baaris muddo dheer lagu waday taariikhna way noo taalaa malaha waxaan idin odhan lahaa wax waan idinka idhi aad baad u mahadsantiin reer Oroboro waxaan idin hambaliyeynayaa sida aad u qiimeynaysaan afkiina hooyo sida aad iskugu duuban tihiin sida aad u midaysan tihiin Allah idin siyaadiyo fariin muhiim ah waxaan saacidi jiray oo qoraalkeena qiimo u yeelay waxay ahaayeen maktabadaha librariyada biblioteegyada Sweden bay ahaayeen biblioteegyadu nin kasta oo buug qora maanta Mahdina wuu jooga Cabdifataaxna wuu jooga warre Oroboro nin kasta oo buug qora waxay ka qaadan jireen 50 60 buugaagta qaarkoodna 100 bay qaadan jireen war shacabkii Soomaaliyeed ee lagu yiri amaaho oo bilaash ku qaado oo ubadkaaga iyo adiguba soo akhriso oo iska soo celi waxay ku baxayleen inay inta sameeyaan ka bacdina culays bay ku noqdeen maktabadihii buugaagta marka mararka qaarkood waxa lagu leeyahay haddaan ku sharafno laba xabban ka qaadanaynaa for example yaan ka qaadanaynaa haddaan ku sharafno marka waxaad ogsoonaatiin halkaan ka soo dhaadhacnay halkaan marayno waxaan idinku boorinaynaa oo idinku dhiirigelinaynaa oo waliba erga idinka nahay maktabadaha taga biblioteegyada taga waalidiinay ubadkiina soo xamaala registerka ha galaan iyo circulationka iyo wareegga ha galaan uba celiya haddaad doontiin intaasina erga gooniyaan idinka ahay aad baad u mahadsantihiin
intaadi dhegaysateen aad iyo aad baan idin salaamaya reer Orebor. Salaamu calaykum.